Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayay soo dhowaada waa macalin Mustafe. Maalin wanaagsan waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad fiican tihiin. Maanta casharkeennaadu ilaahay idmo waxaad ku baranaysaan sida loo tiriyo xisaabta ama tirooyinka sida loogu tiriyo af Soomaali ahaan. Tusaale, ardada Sweden ku dhashay oo kale ama ku koray waxaa u fudud in ay xisaabta ku tiriyaan afka Swedishka inay dhahaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Taas beddelkeed ardayay waxaa loo baahan yahay in tirsiimaha ama xisaabta ama tirooyinka aad ku tirin karto ama aad u taqaano afkaaga hooyo ee qaniga ah ee af Soomaaliga. Maanta casharkeena waxaa ku baranaysaa hadduu ilaahay idmo sida loo tiriyo tirsiimaha ama xisaabta lambar 1 ilaa nambarka 50. 1 ilaa 50 ba maanta waxaad ku baranaysaa sida loogu tiriyo af Soomaali ahaan ama xisaabta lambar 1 ilaa 50 ardayay. Nambarka koowaad maxaa la dhahaa markaad tirinaysid 1 2 3 4 5 6 7 8 9. mar kale aan ku celiyo ardayay ila akhriya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. nambarkan 11 laba si ayaa loo akhriyaa. Dhammaan xisaabtan ay u jeedaan ardada waxay u yaqaanaan laba si oo kala duwan oo labada siba waa loo yaqaanaa af Soomaali ahaan. Tusaale, nambarka 11 waxaa af Soomaali lagu dhahaa 11. 11. waxaa kaloo la dhihi karaa 11. labadaas laba ayaan u qoray ardayay si aad u barataan ama idinku weydiin waayo macalin Mustafa uu leeyahay 11. waa inaad u taqaano 11 ama 11. uma baahnid inaad labadaba hal mar aad isku barato. ardada waddankan ku dhashay oo kale Sweden aad ay ugu adag tahay in laba waxyaalood hal mar isugu bartaan. So sidaan hore u baro ama sidaas dambe u baro. u baro 11 ama u baro 11. marka labaduba waa isku mid. haddii lagu dhaho 11 ayaan jiraa, macnaheedu waxa weeye 11 sano ayaan jiraa. 11 sano ayaan jiraa hadduu qofku dhaho maxaa weeye macnihiisu waa 11 ayaan jiraa. luuqadeenu waa luuqad taajirada ama af ballaaran. erey kasta waxaa loo dhihi karaa ama uu leeyahay siyaabo kala duwan ayaa loo dhihi karaa. waa luuqad aad u weyn, luuqada afka hooyo af Soomaaliga. 11 12. maxaa kaloo la dhihi karaa 12. 13. maxaa kaloo la dhihi karaa 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. macnaha 11 marka la leeyahay kowdan bay hormariyeen 10ka u dambaysiiyaan. 12, 13, 14, 10kay u wada dambaysiiyaan. marna 10ka ayaa la hormarinaya. 11, 12, 13. hal mar baa ardayga akhrinayaa isku day inay iga daba dhahdaan 10, 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. ila socda. 18, 18. 19, 19. 20. 20ka sidoo kale 20, 30, 40, 50. tirooyinka dhan afka hooyo af Soomaaliga badankood waxaa loo dhihi karaa laba si oo kala duwan. 20kana waxaad u baran kartaa tusaale ahaan 21 sugaet maxaa af Soomaali lagu dhahaa 21 ama waxaa lagu dhihi karaa
labaatan iyo kow labaatan iyo kow kow iyo labaatan labaatan iyo labo laba iyo labaatan labaatan iyo saddex saddex iyo labaatan labaatan iyo afar afar iyo labaatan labaatan iyo shan shan iyo labaatan hal mar aan boggaan akhriya ardayey isku daya inay iga daba dhaadaan siddeed iyo toban toban iyo siddeed sagaal iyo toban toban iyo sagaal labaatan labaatan iyo kow kow iyo labaatan labaatan iyo labo labo iyo labaatan labaatan iyo saddex saddex iyo labaatan labaatan iyo afar afar iyo labaatan labaatan iyo shan shan iyo labaatan labaatan iyo lix lix iyo labaatan labaatan iyo toddobo toddobo iyo labaatan labaatan iyo siddeed siddeed iyo labaatan labaatan iyo sagaal sagaal iyo labaatan soddon soddon sidii oo kale ayaa soddonna laba si oo kala duwan u tirinaya soddon iyo kow tretiet maxaa lagu dhahaa soddon iyo kow ama kow iyo soddon soddon iyo kow kow iyo soddon soddon iyo labo laba iyo soddon soddon iyo saddex saddex iyo soddon hal mar aan ku celiyo boggaan labaatan iyo lix lix iyo labaatan labaatan iyo toddobo toddobo iyo labaatan labaatan iyo siddeed siddeed iyo labaatan labaatan iyo sagaal sagaal iyo labaatan soddon soddon iyo kow kow iyo soddon soddon iyo labo labo iyo soddon soddon iyo saddex saddex iyo soddon soddon iyo afar afar iyo soddon soddon iyo shan shan iyo soddon soddon iyo lix lix iyo soddon soddon iyo toddobo toddobo iyo soddon soddon iyo siddeed siddeed iyo soddon soddon iyo sagaal sagaal iyo soddon afartan afartan iyo kow kow iyo afartan mar kale idinku celiyo boggaan soddon iyo afar afar iyo soddon soddon iyo shan shan iyo soddon soddon iyo lix lix iyo soddon soddon iyo toddobo toddobo iyo soddon soddon iyo siddeed siddeed iyo soddon soddon iyo sagaal sagaal iyo soddon afartan afartan iyo kow kow iyo afartan afartan iyo labo labo iyo afartan afartan iyo saddex saddex iyo afartan afartan iyo afar afar iyo afartan afartan iyo shan shan iyo afartan afartan iyo lix lix iyo afartan afartan iyo toddobo toddobo iyo afartan afartan iyo siddeed siddeed iyo afartan afartan iyo sagaal sagaal iyo afartan konton aan idinku celiyo boggaan afartan iyo labo labo iyo afartan afartan iyo saddex saddex iyo afartan afartan iyo afar afar iyo afartan afartan iyo shan shan iyo afartan afartan iyo lix lix iyo afartan afartan iyo toddobo toddoba iyo afartan afartan iyo siddeed siddeed iyo afartan afartan iyo sagaal sagaal iyo afartan konton waxaad noo xigi doontaa inaad barataan tirooyinka sida loo tiriyo lambar konton ilaa lambarka boqolaad hadduu ilaaha idmo marka ardayey qaybtan labalabada u qoran mid ka mid ayaad u baran kartaa macnaha tan oo kale 44 soomaali maxaa lagu dhahayaa afartan iyo labo markii la tirinayo ama laba iyo afartan labada wayna u fahamtay marna tobankii baa la hormarinaya marna tiradii kalea la hormarinaya aad iyo aad baa umahadsantihiin ardayay wixii su-aala hoos noogu reeb qaybta commentiska ah waa macalin mustafa oo idin leh maalin wanaagsan